go-aankii horta kulankii labada xisbi saaka alxamdulilah wakaa guddoomiye cira idiin akhriyey anugu tahay waxa weeye waan si yara adkaynayaa waa ogtihiinoo madaxweynaha muuse bixi markaa 2 sannadood iyo dheeraad buu joogay madaxtooyada 2 sano waxaanu ka shaqaynaynay muuse inaanu la shaqayno oonu ku dayno bal cooperation sidii ay waddanka inagu dhaclay doorashadaasoo aad iyo aad inagu muhiima ayaa ahayd muuse waa si kasta waa yeelay waliba anagu special labada xisbi waa isku keeninay qoladan ee waddan dhowr jeer baan ka kicinay meel ay qabsadeen iyo ku mahadsan international community way noo yimaadeen go'aan bayna la gaadheen waan wada saxiixnay 2 jeer labadii jeer baa hadda waxa jabiyay madaxweyne muuse jabiyay maruu baarlamaanka ilaa mooshinka hirgelinina iyo maruu xubin lagu muransan yahay oo sharcigu diidiyo intuu keenay waliba uu hadana yiri reer baa diidan weligeena waan arki jirnay xubin la diido oo waliba xubinta la diido waxa keen jirtay asxaabta caado ma ahayn inuu madaxweynuhu xubin u keeno ay controversial noqoto markaasuu reer dhan oo wanaag iyo sharaf ka mudan Somaliland ayuu yidhi haddii aan xubintaas celiyo sharciga aan doonay reer baa xanaaqaya oo waxayna soo marin taas waxa ku soo maskaxdiisa reer ku wax kale ku qufulin ma jiro waxa weeye muuse bixi wax kasta waa ku dayn 2 sannadood dalkeena muran ilaa muran ma ahaane dibadda ayaa waddanka xukunkiisii dibadda waa ka fadhiid buu ka noqday gudihii way orjina wasaarad quro shaqaysa ma jirto wasaaradda ay lacagta isoo ururi oo maanta cashuurta halka marinayso ay inaga wareegeen baacmisharigii oo dhame oo ay u wareegeen Djibouti iyo Boosaaso cashuur taa moojaane wax kale maanta wasaarad shaqaynaysa dalkeena farshax garanaysa ma jirto waa ogtiinoo dynamics ba ka socda geeska Afrika yaa ka socda isbedela ka socda isxulufa ka socda qaaradda lagu tartamaya adduunka maanta waa xeebteena waa reersiga way maanta yaa reersigeeni ka bax yaa ka taliya waxa ka taliya farmaajo Djibouti oo ogti inta xeebta ka gasho maanta xeebteena waxa ka taliya in yar oo farmaajo ilmaari ayaa ka wakiila oo gala shararka reersiga loo sameeyay taas muuse bixi wuxuu gudihii u baabiyo haddana dalkii uu khiyaamo ku sameeyay telefoon baa la ii soo diray 10kii bisha diyaarad biska fuulay 800 milyan oo dollar oo la yiri Soomaaliya waxa la siinayaa marka laga dhaafo deynta ayaa la yiri 30% baa yeelanaysa laakiin bishuruud la yiri farmaajo la kulma oo Djibouti kula kulma message-ka waxa siday ninkii inta siday international committee siday waanu diidnaa aqoon rigna fadhiyo anagu gacanta hoos galsan mayna dawladdaanu heshiiseen 800 milyan baa loo sheegay hadaan idin sheegaya waa ka hangalaysay 45 mirir ayuu dalkii Soomaaliland ku xaraashay 45 mirir qoraysho wada joogeen maxaa sababay markaas madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Itoobiya farxadii wuxuu tagay waddanka Imaaraadka wuxuu yiri Soomaaliland iyo Soomaaliya waa heshiisay waxay ka codsadeen inuu farmaajo bixiyo oo kaliya magaranaysaa raali galin ka bacdina alloore hargeysa la geeyna alloore saasoo sheekada ku timi waa iibsanahay Soomaaliland uma ka dabaaldeg ka dhacay xamar iyo maxay magaranaysaa meeshii garbahaariyo koonfurdhan alloore nimanka soo socday way ragii dadkii mucaaradka ahaa ee ku taagnaan waxay leeyihiin war waa ma intaas ku filaydeen madashi oo kale iyo horta wuxuu sameeyay khiyaanad cudma uu sameeyay hadday maanta jirto golayaal iyo shacbina day uma suurta gasheen waa ninka aan markii loo yeeray oran maxay igu yeerisan waa ninka markii uu soo noqday ummadda uu waramin wax ku wada hadleen waa ninka markii imaka uu yimi Axmed Shidaan wax ku wada hadleen cid la wadaagin 2 jeer bay gaar isku arkeen subaxdii iyo habeennimadii markuu ka soo dhamaystay buu 4 wasiir u yeedhay ka wada cashayn ama dabato markaas uu sheekay wixii laakiin nuxurka lagu sheekay kama hadal
وكتجي موسى وكتجي مدحنمو يا الشرع وكتجي هذا وحنا وشيقنا هذو الشرع كتجي والشرع وكتجي وحاو كل دقاقه أنا قلنا الشرع وكل سعون مدحوين نقول مايو مدحوين موسى بيحبوا نقولنا هذو إلى أعد يفرض وين بابينيا أو شرع وقتي قال من جينيا أو شاربان طلانيا وحنا وين مدحوين المتي هذو بشا جودي هذا تايمز قال سي لا بش التبن كذا هذا قرق هذا وياه مدحوين نقول مايو عشور وقاضنا يعني ما شفته عشور يحمودي من أبي بحمودي عشور شعب السماء بحيه كردان كشرية كردان كشرية كردان كشرية كردان كشرية وحنا كشرنا مع العقد قالت خاين كنت ولي به وخاين من العظمى وي هل أنا لقوا حشمون ما أنت هير والدبل الجليل أنا ما شفته هير كود واركي سو ما وياركتي أدونك واركي وخاين أفكي شيء أفكي ستين هران وشاك لما قاعد كده سود مي أنا عفوينا نقول نقول دوني أفوينا ردني أفوينا ردني أفوينا ردني وأنا قردنا هذا كان أبي يسكت سواء كردنا